wiilka la leeyahay jamcaale adeer waxaad ahayd macnaha farolaad la kooysatay dadkii farola soo saaraay anna cabdullaahi yuusuf baa soo saaray isku teetal aniga adigu ma noqon karnaa marka wixii ka dambeeyay aniga iyo adigu midna isku teetal ma noqon karto yaa xabadu waxay tahay aniga adiguna waa naqaanaa gaar ahaan baan isu naqaanaa hadda miidiya iga aragtay haddii kaleba gaar ahaan baan isu naqaanaa adeero marka hanu u kallifin inaan qoriga dib u qaato looga daaya magaalada adiga iyo wixii la mid ah ka hadda fadloon aaba anna haddaan imi waxaan u malaynayaa inay jawaab culus laga helayaan looga daaya magaalada rabshada wallaahi jawaab degdega ayaan taa ka bixinaynaa waddanka waxaa jooga hadda aabbo haddaan imid shaqooyinka dadkaan uga tagnay oo siciid inoo keenay waxaan ugu celinina ciyaartay haddaad dowladda dhexe lug nala soo gasho wallaahi qoriga waa qaadanaya oo billahi waa qaadanaya ama jamcaalo walaale macaan in adeerkay baa tahay in adeerow waan isgaranaynaa yaa xabadu waxay tahay aniga adiguna waa naqaanaa gaar ahaan baan isu naqaanaa hadda miidiya iga aragtay haddii kaleba gaar ahaan baan isu naqaanaa adeerow marka hanu u kallifin inaan qoriga dib u qaato looga daaya magaalada adiga iyo wixii la mid ah haddee hanjabaad ilaa ay ciidanku markay tageen oo bixaan way hanjabayaan waxay lahayd ciidanku ma imaan karaan ma soo geli karaan garowe mataqaanaa waxa weeye waa la laynaya waa la qaqabanaya ma garatay ciidanku waa yimaadeen meeyo iyagii lama hayo iyagii inaadan marka taasina waa u socon weyday hadda guri baana ku dumay inaadan gacli waa dhunteen hadda marka ciidanka yimaada xalay wax hal waa la waayay ma garatay marka taasina waxaan leenahay adeerow faataalayaalow beentiinii iyo matana qayladii waa in ka beenowday ma garatay waa arrin raqiis ah oo aan waxba ahayn oo dad mataqaanaa qaaqliyaale ay ka shaqeeyaan weeye arrintaas waana beenowday ciidanka waana yimaadeen ninkii dee mataqaana is hortaagi lahaana maba dhalanba ma garan waa qof hadal raqiisa weeye waa hadal dad qaaqliyaalo raba dadka Puntland iyo waxa weeye inay shaqaaqa iyo mataqaana dagaal ka dhex sameeyaan ma garan haddii ciidanku mataqaana ciidamada Puntland waxa weeye qayb way soo noqon kartaa mataqaana waa magaalada laakiin si amni ahaan in amniga laga shaqeeyo nabadda iyo wadajirka laga shaqeeyo taas dhibaato ma leh laakiin haddii ay wax kala jiraan oo ciidamada jooga mataqaanaa gobolka Sool aaday waxa weeye calaamasaadkii waxa weeye madaxweynaha Abdiqaadir Cali Fadhiye u tagay haddii mataqaanaa iyagu dee nabadba iyagu xataa nabad bay ilaalinayeen waxa weeye gobolka Sool dee markii madaxweynaha Xasan Sheekh uu yimaaday iyo calaamasaadkii madaxweynaha bay u tageen wax dhibaato ma aysan wadin haddii ay tahay macna ciidanka waxa weeye ciidanka la yiri magaalada soo geliyay ay aadayaan mataqaanaa ay u socdaan in ciidamada kale ay ka hortagayaan ama ay dagaal sameynayaan waa khalad weeye khalad baan u aragnaa haddaan shacabka reer Puntland nahay gaar ahaan reer Garowe nugaal haddaan nahay anoo khalad baan aragnaa ciidanka Garowe ka tagay ama gobolka nugaal ka tagay waa ciidamadii Puntland u soo dagaalamay u soo halgabay waxa weeye cadow badan oo Puntland lahayd jabiye weeye ma garatay waxa weeye waa arrin raqiis ah oo aan waxba ahayn oo dad mataqaanaa qaaqliyaale ay ka shaqeeyaan weeye arrintaas waana beenowday ciidanka waana yimaadeen ninkii dee mataqaana is hortaagi lahaana maba dhalanba ma garan waa qof hadal raqiisa weeye waa hadal dad qaaqliyaalo raba dadka Puntland iyo waxa weeye inay shaqaaqa iyo mataqaana dagaal ka dhex sameeyaan ma garan inaadan marka taasina waa u socon weyday hadda guri baana ku dumay inaadan gacli waa dhunteen hadda marka ciidanka yimaada xalay wax hal waa la waayay ma garan marka taasina waxaan leenahay adeerow faataalayaalow beentiinii iyo matana qayladii waa in ka beenowday ma garan haddee hanjabaad ilaa ay ciidanku markay tageen oo bixaan way hanjabayaan waxay lahayd ciidanku ma imaan karaan ma soo geli karaan garowe mataqaanaa waxa weeye waa la laynaya waa la qaqabanaya ma garatay ciidanku waa yimaadeen meeyo iyagii lama hayo iyagii saas u dhunteen ma garan been hadalkooduna been buu noqday garowe horta waa caasimadii Puntland saasay tahay qof iyo laba iyo saddex iyo horta mid loogu joojinayo maaha dadka la leeyahay ciidamada magaalada soo galiyeen magaalada Garowe ay soo galiyeen ku soo beeriyeen adeer Garowe nabadeedu rag baa dhiig u horay dadka hadda fadloon aaba anna haddaan imi waxaan u malaynayaa inay jawaab culus laga helayaan looga daaya magaalada rabshada wallaahi jawaab degdega ayaan taa ka bixinaynaa run baan u sheegayaa eeshaan rugcadaaba soo noqonaya dadka cusub waa iska tagayaan baan u malaynayaa markaan ugu kalifanayna inaan qoriga dib u qaadano dadka cusub waxa weeye dadka la leeyahay Garowe ciidamada ku soo xareysteen oo dana gaar ah ay ka leeyeen dana siyaasadeed oo dawladda dhexe ah dawladda dhexe dee awalna annaga dhalinay oo xurnay oo dadkii wax ku xuriyay baan kamid ahaa maantana annaga dee gaar ka taagano abaalkayga wuxuu noqotay dawladdu annaga og waxay abaalka nooga dhigtay anigoo wiil Puntland state ah marka Puntland nima aanu ku hadlayaa kuma hadlayo af qof gaar leeyahay ama af uu leeyahay Siciidani midna ku hadli maayo afka Puntland baan ku hadlayaa waayo Puntland days baan ahay ciidamadii hore Puntland baan ahay haddeer dhowaan shaqada ka fariistay waxaan uga fariistay xaaladaha jira awgood ma ahan qof
macnaha waddanka waxaa jooga hadda aabbo haddaan imid shaqooyinka dadkaan uga tagnay oo siciid inoo keenay dee aabbo haddaan imid weeye dad dhif oo shaqo yaqaana waa jiraan marka ayagana dulqaad baan ku samaynaynaa wiilasha la leeyahay qoryaha iyaguna wataan oo dawladda dhexe la socdaan adeer naga daaya hanugu celinina ciyaarta haddaad dawladda dhexe lug nala soo gasho wallaahi qoriga waa qaadanaya oo bilahi waa qaadanaya naga daaya marka annagu muwaadiniintii puntland baan nahay dadkii hore puntland u shaqayn jiray baan nahay adeer naga daaya qoriga ha igu celinina fadlan waa iga codsi wiilka la leeyahay jamcaale adeer waxaad ahayd macnaha farolaad la kooysatay dadkii farola soo saara ahayd anna cabdullaahi yuusuf baa soo saaray isku teetal aniga adigu ma noqon karnaa marka wixii kaa dambeeyey aniga iyo adigu midna isku teetal ma noqon karto marka magaaladan aad arkayso shalay adoo farola ku soo saaray inaad qori u soo qaaday yaa maanta garowe shalay say ahayd iyo maanta say tahay adigu ku kala maad baa qaado marka inaad dagaal la soo geshid ama la dhaho jamcaalaasaan soo ah ama jamcaalo walaale macaan in adeerkay baa tahay in adeerow waan isgaranaynaa yaa xabadu waxay tahay aniga adiguna waan naqaanaa gaar ahaan baan isu naqaanaa haddaa miidiya iga aragtay haddii kaleba gaar ahaan baan isu naqaanaa adeerow marka hanugu kallifin inaan qoriga dib u qaato nooga daaya magaalada adiga iyo wixii la mida waan salaamayaa qoladiinnan waxa weeye warbaahintana aad iyo aad baa adeer macaan u wanaagsantihiin puntlandnimada laga shaqeeyo